kulan wacan daawaday waxaad ku soo dhawaataa janaalkeena Lewaya Films oo aad kaga barateen inaad ka daawataan warbixinadii la xiriira aktaryaasha ugu caansan Hindiya iyo kuwa haatan u halgamay inay noqdaan aktara magac ku leh Bollywoodka. haddaba haddii aad ku cusub tahay kanaalkeena ama janaalkeena Lewaya Films, fadlan subscribe noo dheh, comment ka baxso, like ta saar, sidoo kalena gambalaalka furo si aad u hesho warbixinada ugu dambeeya ee halkaan aan soo dhigno. maqaalkeena maanta waxaan ku eegi doonaa tirshida saldhigata ee lagu magacaabo Kiara Advani, haatana saameynta ku dhaxlay Bollywoodka. xidigtan ayaa sanadii 2019 waxay gacanta ku dhigtay laba mashruuc oo guulo waaweyn gaareen. sidoo kalena Kiara ayaa muddo 5 sano waxay ku qaadatay inay magaceeda saldhigto. waraysi ay siisay BBC Asia Network ayaa dhinacyo badan kaga hadashay, waxaana wax laga weydiiyay sida ay nolosheeda isku bedeshay sanadihii dambe. waxayna ku jawaabtay, shaqo aqliyaysan ugu dambeyn way saldhigatay. waxaa jirta maalmo 5 sano ka hor aan sidan ahaa, maxaan qabtaa, sideen u buuxiyaa jadwalkayga maalinlaha ahaa, waxaan u baahnaa waxaan joogteeyo, waxaan sidoo kale u baahnaa waxaan halkeeda kasii dhaqaajiyo, maxaa yeelay ma ahayn shaqo 5 maalin iyo 9 saacadood oo toos ah. maalmo qaar waa 3 saacadood amaba 5 saacadood, laakiin hadda markay ugu jar tahay waa 12 saacadood. waan jeclahay. adigtaan ayaa la weydiiyay in halgankeeda sida ay sheegtay uu ahaa wax aan laga hadli karin oo cadaalad darro. haddaba maxay ula jeeday? maanta oo kale baraha bulshada qof walba uu og yahay waxa kugu saabsan, markaa shay ka hadlayso waa lagu xukumayaa. sidaas daraadeed haddii aan soo dhigo sawir aan asxaabta iskuulkeena iskula jirno oo aan dhaho halgankaygu waa halkii aan ka bilaabay, waxaa lagu dhahaa sidee ku dhacday, waayo waxay saaxiib la tahay Isha Ambani. anigoo dhan waxaan dhahay maxaa jira, aniga miyayada ah, taasi shaqadeeda iyo nolosheeda waxba kama gelin iyo waxa aan maalin sameeyo, laakiin taasi waa caadi oo kama cabanayo waayo halgankaasi wax kama gelin. Kiara ayaa doorkeeda Kabir Singh waxaa ku kala qaybsamay daawadayaasha. inkastoo blockbuster uu noqday, haddana wuxuu lahaa mushkilooyin in dumarka lagu leeday. waxay digtaan la weydiiyay inay taasi ahayd khibrad ay ka dhaxashay guul iyo guuldaro filimka Kabir Singh, iyo inay dadka ku xukumeen moraalka ee filimka ku jisa iyo moraalkeeda mid isku dhigma. way ahayd ereyga aad u adeegsatay guul iyo guuldaraba dhabtii wuxuu ahaa mid lagu soo koobay. waxaan u maleynayaa inuu ahaa sidaasi waayo uu qurux badnaa, meel walba oo aan tagana quruxdaas ayaan ka helayay. markii aad aragto sida ay dadku u qiimeynayaan filimka, waa mid shakhsiyadeed. doorkan wuxuu ahaa mid aan geliyay muddo 3 bilood ah. ugu dambeyn Kiara ayaa ka hadashay filimkeeda kale ee guusha gaara ee Good News ee la jishay labada aktar Kareena Kapoor Khan iyo sidoo kale Akshay Kumar iyo xidig kale reer Punjab. inay la shaqeyso Kareena Kapoor ay ahayd sidoo kale rii urumowday. markii aan joogno goobta duubista waxaan dhahay waaw, tani waa caruurnimadeeda, riyadeeda iyo wax walba. Kareena Kapoor Khan waxaan xasuustaa inay ahayd qof aan yaraanteeda markii aan soo weynaanay aan jeclaa inaan aga istaago iyo inaan isla duubno hees. waxay ahayd waqtigeyga, ma aqaan waxa dad kale ay u ahayd. iyo hadalkeeda ku soo xirtay wareysi ay bixisay Kiara Advani. haddaba haddii aad ka hesho warbixintan la wadaaga asxaabtaada.